Somaliland waxay haysataa wax weyn oo ah hub laga ciseeyay dunida kaasi duniduna uu ogashahay inay kula wareegto hawadeeda haddii dadka qaar ku doodaan inay Somaliland tahay dalaan la aqoonsan oo aan maamulin karin hawadiisa arintaasi waa dood weyd ah oo kuwa ficil ah ayaa falay waxay ku fikirayso xukuumaddu sida ay Somaliland kula wareegi kartaa ama se wuxuu ku kartaa hawadeeda waa kuweese dalalka iyadoo kale ah aan la aqoonsan balse maamula hawadooda xogahaasi iyo kuwa kale ayaynu ku eegaynaa faaladan waxaana idin tabin doontaa anigoo hodan murtiya siyaasi ku takhasusay arrimaha xiriirka caalamiga ah waa Adam Daoud Ahmed ayaa qoraal dheer oo ku baahiyay bartiisa rasmiga ah ee Facebook waxa uu ku bilaabay garnaqsiga qaranka isagoo sheegay inay Somaliland haysato ama se Somaliland fikirka caqliga ah oo u raaco wax kale oo awood badan kaasi oo ay ku maamulan karta hawadeeda waxaanu yiri Somaliland xaq ma u leedahay inay hawadeeda maamusho si ka madax banaan Soomaaliya Somaliland xaq sharci mid caqli labadaba waxa ay u leedahay inay maamusho hawadeeda si la mid ah dalka ay isku doodayeen inta kadibna saddex qodob oo garnaqsi weyn ah ayaa uu aad ugu talax tagay waxaanu yiri qodobka koowaad the factor control maamul dhab ah Somaliland waxa ay samaysatay dawlad shaqaynaysa oo madax banaan oo ka talisa dhulkeeda badeeda iyo hawadeeda sare waxa xaqiiqo ah maamul wanaaga dimuqraadiyadda wax go'olka ah iyo xasiloonid marka loo eego dalka ay jaarka yihiin Soomaaliya Somaliland waxay xaq u leedahay inay si ka madax banaan u maamusho hawadeeda iyadoo hoostageen Muqdisho qodobka labaad right to self determination xaqa aayaka tashiga Somaliland waxa ay ku doodaysaa mabda'a aayaka tashiga kaas oo loo aqoonsan yahay mashruuca caalamiga ah ee uu ku jiro axdiga qaramada midoobay sida awgeed dooddu waxa ay noqonaysaa in dadka reer Somaliland ay yihiin kuwa ka duwan Soomaaliya inteeda kale oo ay doorteen in ay dawladooda iyo calankooda ay xamar geeyeen ay dib ula soo noqdaan taasi way ku jirto in ay si madax banaan u maamulaan hawadooda qodobka saddexaad historical presidency qoraantii taariikheed ka hor midowgii Somaliland iyo Soomaaliya ee 1960kii ee ay labada dawladood ku midoobeen jamhuuriyaddii la isku oran jiray Soomaaliya Somaliland taariikhiyan waxay ahayd maxkamiyad heshiis kula jirta boqortooyada Ingiriiska ka hor madax banaanideedii 1960kii Somaliland waxay xaq u leedahay inay miiska keento xaaladeedii midowga ka hor waxa uu iftiimiyay sidaanay Somaliland kalida ugu ahayn inay hesho maamulka hawadeeda iyadoo ah dal aan gabi ahaanba dunida laga aqoonsanay waxaanu yiri dhanka kale Somaliland waxay xaq u leedahay inay maamusho hawadeeda si la mid ah lixda dal ee hoos ku xusan kuwaasi oo hawadooda si buuxda u maamula iyagoo oo aan haysan aqoonsi caalami ah balse uskanaya qodobo sharci oo awood u siinaya maamulka hawadooda duniduna aqbashay xaqiiqa ahaanshahooga ugu dambeyntiina Adam waxa uu soo qoray lix dal oo kamid ah dunida kuwaasi oo gabi ahaan baan la aqoonsanayn balse haatan gacanta ku haya maamulka hawadooda waxaanu yiri lixdaasi dal ayaa waxay kala yihiin kow Taiwan jamhuuriyadda Shiinaha Taiwan waxay u shaqaysaa sidii dalka madax banaan ulweynaha Shiinaha oo leh dawlad u gooni ah dhaqaale iyo ciidan si kasta ha ahaatee guud ahaan looma aqoonsana wadan madax banaan sababtoo ah siyaasadda hal Shiine oo u aragta Taiwan qayb ka mid ah Shiinaha iyadoo ay taasi jirto Taiwan waxa ay gacanta ku haysaa nidaamka duulista oo uu ku jiro maamulkeeda hawadu dalka labaad Kosovo wadanka Kosovo ayaa sanadkii 2008 ku dhawaaqay inay ka go'day Serbia balse xaaladeeda weli lagu muransan yahay iyada waxay aqoonsan yihiin dalal badan oo ay ku jiraan Mareykanka iyo qaar ka mid ah midowga Yurub Serbia waxay weheliyaan dalal ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha ma aqoonsana madax banaanideeda Kosovo waxa ay leedahay awood u gaar ah duulista hay'adda duulista rayidka ee Kosovo magaceeda loo soo gaabiyo KAG taasi oo maamusha duulista gudaha dhulkeeda dalka saddexaad waa waqooyiga Qobrus oo si rasmi ah loogu yaqaan jamhuuriyadda Turkiga ee waqooyiga Qobrus TRNZ ayaa ku dhawaaqday madax banaanideeda sanadku markuu ahaa 1983 laakiin waxa aqoonsaday Turkiga oo kaliya beesha caalamka inteeda kale waxay u haystaan inay qayb ka tahay jamhuuriyadda Qobrus iyadoo taasi ay jirto waqooyiga Qobrus waxa ay leedahay duulimaad u gaar ah oo ay mas'uul ka tahay nidaamka dhaqdhaqaaqa duulista hawada dhulkeeda
dalka afraad waa saxaraha galbeedka ee magaciisa loo soo gaabiyo SATR. saxaraha galbeed waa dhul lagu muransan yahay oo ay wada sheeganayaan wadamada Morocco iyo sidoo kale jabhadda Polisario. jamhuuriyadda dimuqraadiga ee carabta ee Sahrawi waxay ku dhawaaqdeen madax bannaani 1976 laakiin madax bannaanideeda waxa aqoonsaday tiro kooban oo dalal ah. dhaqaaqyada duulista ee meelaha ay maamusho SADR waxa maamula maamulkeeda ay gaarka u leeyihiin. waddanka shanaad waa Abkhazia. Abkhazia waxay ku dhawaaqday inay ka go'day waddanka Georgia horaantii 90-maadkii. meeqaamkeeda waxa aqoonsaday dhowr waddan oo kaliya oo ku jiro Ruushka iyo kuwa kale oo fara ku tiris ah. inkasta oo aqoonsi caalami ah oo xadidan yahay, Abkhazia waxa ay ku sii haysaa maamulka nidaamka duulista gacanteeda iyada oo maraysa awoodeeda duulista. dalka lixaad ee ugu dambeeya waa South Ossetia. South Ossetia waxay ku dhawaaqday inay ka go'day waddanka Georgia horaantii 90-meeyadii, waxaana loo aqoonsaday waddan ka madax bannaan. waxaana aqoonsaday Ruushka iyo dalal kale oo yar. si la mid ah Abkhazia, South Ossetia waxa ay maamushaan nidaamkeeda duulista ee gudaha dhulkeeda. ugu dambayn, doodda hawada ee Somaliland iyo Soomaaliya ee leh Somaliland awood uma laha caalami ahaan inay u maamusho hawadeeda waa dood jaban oo aan haysan waxgar iyo garowshiyo toona. Somaliland xaq ayay u leedahay inay maamusho hawadeeda badan hoos tegayn dalka ay jaarka yihiin ee Soomaaliya. intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa faalladan aynu ku soo qaadanay Aadan Axmed Daa'uud oo ah xildhibaan kayd ah isla markaana ah siyaasi weyn ugu takhasusay arrimaha xiriirka caalamiga ah. iyo kullii dambe waan iga hodan ka xaqiiqsan